أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Somali Youth Scholars. haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqatay channelkeena, soo dhaweeyaan ku leenahay walaal. YouTube channelkani waa YouTube channel aan ugu talagalnay inaan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo nagu soo gudbino deeqada waxbarasho, fursadaha maanta ka jira dunida dacaladeeda. sidoo kale ay kamid tahay sida loo xariisto green card lottery-ga iyo waxyaabaha kale oo la midka. maanta mowduuc aad muhiim ayaan isla eegi doonaa oo ku saabsan green card lottery-ga, khaas ahaan imisa Soomaali tiro dad gaaraysa intee ayaa ku guuleystay barnaamijkani oo ku baxo sida dalka Mareykanka ku tago. intaana midaas u gudbin taariikh ahaan barnaamijkani green card lottery-ga wuxuu bilaabmay sanadkii 1994. marka 1994 laga soo bilaabo ilaa sanadkan aan ku jirno 2021 xogtaas dhan hadda ma heli karo oo yani website-ka dowladda dalka Mareykanka ee bixiso qoladaani green card lottery-ga hadda waxay u hayaan xog gaaraysa laga soo bilaabo sanadkii 2007 ilaa 2021 u dhaxayso ilaa xog intaas gaaraysa ay hayaan, yani wax kale waan ka waayay website-ka. marka insha Allah waxaan isla eegi doonaa bal laga soo bilaabo 2007 ilaa 2021 sanadkan aan ku jirno imise qof ayaa xareystay barnaamijkani oo sidaas ku baxo. idinkan tusaale ay idin noqon doontaa, yani cilada meesha ka jirta aan isla eegi doonaa. saddex qayb insha Allah ee u kala dhigan oo qaybtan oo ah entry, yani dadka xareystay barnaamijkani, yani ku guuleystay ma aha dadka xareys. hadda sanadkan hadda ku jirno DV lottery wuu furan yahay Soomaan dad xareysanay. marka xareystan tiradaas ayaan ka hadlaynaa. hadda tiradaasi inta xareystay qof barnaamijkan laga soo bilaabo 2007 ilaa 2021 sanadkan hadda ku jirno, iyo qaybtan oo ah selected entry, dadkii xareystay dadkii laga soo doortay inta gaaraysa. sidoo kale 2011 ilaa 2018 ee hayaan xog intaas gaarayso, iyo mid u dambayso oo ah dadkii la soo doortay imise qof ayaa yani wixii looga baahnay soo buuxiyay, barnaamijka looga baahnay soo buuxiyo oo fiisii dalka Mareykanka fiisii sidaas lagu siiyo dalka Mareykanka sidaas ku galay. waxaan ku bilaabanaa qaybtani oo ah imise qof ayaa xareystay, yani oo Soomaali tiro intee gaaraysa xareystay. isla eegin 2007 ilaa 2009 waa PDF kani Soomaaliya away. sidoo kale Djibouti waa isla fiirinayna. sidoo kale Soomaali waatana waxa way qayb waa 2007 meeshan. labada meel ay idin kala sharxo entry iyo derivatives iyo total. entry waxa way yani inta qof yani barnaamijkan xareystay dhageysimida si fiican u dhageysi, iyo derivativesna waxa way yani dadkan xareystay dadka hoos imaaday. mesela aabaan ahay kasoo qaad caruur haystaa 2 caruur marka aniga xareynaa aniga waxaana entry, yani caruurta iyagana ma xareysanayna, anana maadaama aniga xareynaa ciyaalkayga ku darsanay barnaamijka Soomaan. marka ciyaalkaaga waxay yihiin derivatives adiga ku hoos imaanay, yani dadka xareynaya dadka hoos imaanay aaba kasoo qaad iyo caruurtiisa. adiga waxaa tahay hal qof camalaad tahay, hal qof entry aa tahay, laakiin 2 caruur haystaa, then total waxaa noqonaysa 3 qof aa noqonaysa. marka sidaas waa fahantaa u malina barnaamij sidoo u socdo. then Soomaaliya isla imaanay meeshani, where Somalia here Somalia. then sanadkii 2007 14,000 oo qof ayaa xareystay, 14,667 qof. derivatives dadkii xareystay dadka hoos imaada uu gaarayay 5,705 qof. total dhammaan markii la isku daro waxay yihiin 20,372 qof Soomaaliya xareystay total. 2008 aan isla eegno tiro gaaraysa 11,052 qof. derivatives intii dadkaas dadka hoos imaanay 4,600 tiro gaaraysa. total marka waxay noqday 15,647. sidoo kale 2009 kan isla eegno totalkii meeqay gaartay 15,336. marka waxa waaye 2009 ki tiro yar xareystay 2009 2008 waxa wax farqi ma u dhaxay aad isku dhooyin, laakiin 2007 tiro aad u badan xareystay. 2007 ilaa 2009 ka doon isla eegnay. then
inta imow 2010 ilaa 2012 aan isla eegno. Sorry, intaan midaas u gudbin aan dib u laabno waxaa fiirinayna Djibouti sidoo kale meeqa tira intee leeg yani xariis sanadahaas. Djibouti 2007 waatana Djibouti waxaa total markii la isku daro 904 qof, yani aad ay u yar tira aad u yar xariis sanadkaasi. sanadkii 2008 aan imaano waxaa waa 961 qof dad gaarayo. 2009 kan isla eegno 1452 yaa tirada hadda way fiicantay sanadkaas 2009 aadayna ugu yaryihiin yani barnaamijka xariistaankiisa markii la okay aan imaan 2010 ilaa 2012 inta u dhaxaysay. Djibouti oo soo Salma Djibouti isla eegno sanadkii 2010 tiro gaarayso 1666 qof ayaa xariistay. sidoo kale 2011 waxaa xariistay 2012 qof tiro gaarayso. sanadkii 2012 2971 good dad gaar ayaa xariistay. then Soomaaliya aan fiirino Soomaaliya here Soomaaliya waatana 2010 aan fiirino 15000 tiro gaaraysa 15400 tiro gaaraysa dad ayaa xariistay. sanadkii sidoo kale 2011 tiro gaaraysa 15600 sidoo kale 15400 tiro gaaraysa sidoo kale xariistay aad isku dhawiyeen. sanadka 2012 waxaa xariistay 14805 xawaa sanadii kale markii aad ugu yiri. then 2010 ilaa 2012 waan isla eegnay. then waxaa isla fiirnayna 2013 ilaa 2015 Somalia okay alright. Somalia markii la dhaho 2013 ilaa 2015 tiro gaaraysa 2013 xariistay 13000 oo qof 13788 qof xariistay. markii 2014 waxaa xariistay 12000 tiro gaarayso iyo 778. sidoo kale 2015 waxaa xariistay tiro gaarayso 17571 qof good kor u kac fiican sameeyeen sanadkan 2015 isdhahay. Djibouti sidoo kale aan eegno inta tira qof oo xariistay yani barnaamijkani Djibouti sanadkii 2013 tiro gaaraysa 4000 aadayna ugu yiri mulba. sidoo kale 14 sidoo kale tiro gaaraysa 4000 sidoo kale tiro gaaraysa 4000 sanadkaasi. sidoo kale balaan aadno 2016 ilaa 2018 sidoo kale isla fiirino 2018 ilaa iyo 2018 ilaa iyo 2016 ilaa 2018 where is Somalia yeah 2016 Soomaaliya waatana inta qof xariistay barnaamijkani waxay gaarayeen 28387 qof okay sarkac yani aada waxaa dad badan xariis sanadkaas. sidoo kale sanadka 2017 kasii tiro badneed gaaraysa 35400. 2018 60000 hani laba jibaar 60579 qof ayaa xariistay. wow tiro aad u badan. sidoo kale Djibouti aan isla eegno Djibouti markii la isku daro waxaa xariistay 8000 2016. 17 waxaa xariistay 10000 dad gaaraya tiro 10000 gaaraysa. markii 18 lan waxaa tiro 14000 gaaraya masha Allah maxmo. okay isla eegno 2019 ilaa 2021 alright okay 2019 ilaa 2021 where is Somalia tiradana marka raba marka inaan si fiican isla eegno ya Somalia ha isla eegno waatana Somalia qaybtani sanadkii
2019 inta entry samaysay yani markii laisku daro entry iyo derivativeska markii laisku daro 2019 waxaa xareystay 37,103 qof xareystay. okay sanadkii kale 2020 haysla eegno 14,373 qof ayaa xareystay. okay sanadkii kale aan imaano 2021 11,992 mise leedahay sanadihii hore yani 2018 16 sar u kac fiican ay sameeyeen yani ilaa 60,000 dad gaar ah xariisanay. waayo 2021 iyo 2020 ee yani tiradan zaaid ku yar 11,000 qof 11,000 iyo 14,000 iyo maxaa keenay isla dabcan baasaboorka waay sanadihii hore waygaas baasaboor maysan jirin laakiin laga soo bilaabo sanadkii 2020 aan rajeynayaa 2020 mise 2020 probably waxaa waaye baasaboor qasab laga dhigay markii barnaamijka xariisanaysa baasaboor inaad xariis baasaboor laan inaad xariisan karin baasaboor laantiisa aad xariisan karin marka dadka waxaa waaye tirada hoos u dhigay waxaa waa baasaboor laanta waay marka baasaboor daada haysanin waxaa waaye dhibay ku ay dad inuu xariisto. marka tirada saxda ah 2021 xareystay ilaa 21,992 qof ay gaareen. okay tiradan intaan waxaa waaye waxaan isla eegnay intii qof oo barnaamijkaani xareystay sida rajayna meeshan waa fahanteen. okay waxaan galeynaa qaybtaani labaad oo ah number of selected meeq qof la soo doortay dadkan tiradan intaan 2017 ilaa 2010 yani dadkii wada xareystay yani meeq qof laga soo doortay laakiin tiradan waxay ka bilaabataa 2021 ilaa iyo 2018 intuu dhaxaysay siiyeen xogtaas isla eegana 2021 imise qof Soomaali ah la soo doortay oo barnaamijkan ku guuleystay dadka xareystay meeq qof guuleystay oo la soo doortay isla eegno 2021 I'm wondering like how I meeq qof laga soo doortay aragna waxaa laga soo doortay 2021 204 qof laga soo doortay Soomaaliya inta xareystay 201 qof yani 201 tiri gaaris dad ayaa laga soo doortay yani muxuu waxa waa fiican waxa dad badan ka fiican yani Afrikaan badan ka fiican wadamo qaar waxa zero ay hata أنا ما قرن كره أنغولا عمل كونتينيشن قف بوتسوانا 23 so وحاول لو بقوليه سومالي لو بقوليه كو قف على soo doortay حاول muxuu masaa'isla yani tirixun maahan markii la isku eego yani wadamo badan marka isku fiirino aada ugu fiican yani aada ugu fiican tira ahaan. okay waxaan kaloo isla eegnaa 2012 isla fiirino 2012 insha Allah xogtaan linkiga qaybta hoose soo dhigi doona hadaa u baahan tahay waa gali kartaa waa fiirin kartaa. 2012 imise qof Soomaaliya la soo doortay 175 qof Soomaaliya barnaamij ku guuleystay oo la soo doortay yani barnaamijkan selected yani la doortay oo barnaamijkan guuleystay. okay aan ka gudubno sidoo kale 2013 aan aragno hadaa rabtid waxaan si fiican u fiirista akhrisid adiga waa akhrin kartaa linkiga qaybta hoose soo dhigi doona insha Allah. 2013 sidoo kale waxaa la soo doortay tiro gaarayso 197 dad gaaray tiro gaaray Soomaali waatana tiro gaarayo 2014 sidoo kale isla eegno 273 qof dad gaaray tiro fiican waaw xawaaye tirada muxmo tiro fiican oo yani aad wanaagsan waa xiligaas bala Djibouti isla Djibouti ma qof laga soo doortay markaas 2014 dad 75 qof gaaray. okay 2015 isla eegno 2015 Soomaaliya way 2015 waa 275 qof
275 qof dad gaaraya. Djibouti-na 77 qof barnaamijka ku guuleystay. Alright, 2016 sidoo kale isla eegno. 2016 Soomaaliya were here 272 marul 200 u dhaxayna 272 tiri gaaris Soomaaliya barnaamijka ku guuleystay. Djibouti sidoo kale 92 qof. Okay, no bad maxmo. 2017 imaano 2017 barnaamijka Soomaaliya ahaan 215 qof ayaa ku guuleystay. Djibouti 53 qof ayaa u yarnay. Okay, 2018 yani imaano 2018 2018 Soomaali 436 qof dad gaaray ayaa Soomaali ayaa ku guuleystay barnaamijka. Wow. Djibouti 121 qof dad gaaray ayaa ku guuleystay. Haddana hadda xasuustay xiliyadan waxa xiliyada Trump haystay waay. Marka bala isla eegna waxa waay xiligaas dad tir intaas leeyahay ku guuleystay. Then qaybtan waxa dadka ku guuleystay barnaamijka markay xariistay waa xariis dadkii xariistay dadka laga soo doorto ku guuleystay iyo dadkan waxa waay qaybtan dadkii ku guuleystay yani dadkii waxyaabihii laga rabay documentieskii soo buuxiyay oo fiisihi la siiyay dadkan. Marka adiga hadaa ku guuleystay micnaheedu maahan in yani fiisa helaysid waajib maahan. Shuruudaha jira shuruudahaas hadaa soo buuxisid waa lagu siinaa fiisa. Hadaadan soo buuxinin waxa waaye Soomaalidaada emailha ka imaata jiifanay saas waay. Then 2008 ilaa 2017 isla eeg marka inta fiisa tiradad fiisa la siiyay yani isla eegno. Okay, Africa where is Somalia 2008 ilaa 2017. Okay, Somalia where are you? Here Somalia 2008 inta qof yani shuruudihii la rabay soo buuxisay oo fiisaha la siiyay 40 qof ay gaarayeen. 2009 70 qof waay dad ay gaarayeen 70 qof tir gaarayso ay laga sii fiisa la siiyay dalka Mareykanka oo sidaas ku galay. 2010 tir gaarayso 72 qof. 2011 tir gaarayso 52 qof. sidoo kale 2012 qof dad gaaray. 2013 78 qof. 2014 qof. 2015 dad gaaray 59 qof. sidoo kale 2016 104 qof dad gaaray. sidoo kale 2017 6 qof dad gaaray. intaana fiisa laga siiyay yani aaday u yarna fiisa dadka laga siiyay in la siina yani dad badan shuruudahooda soo buuxinayeen marka fiisa lagu siinayo hadaa ku guuleystay micnaheedu maan inaad fiisa helaysid oo Mareykanka tagaysid. Then hal mar isla fiirin inta qof fiisa la siiyay sanadkan 2017 iyo inta qof oo ku guuleystay barnaamijkan isla eegin way here meesha 2017 imise qof Soomaaliya barnaamijkan ku guuleystay 215 qof ku guuleystay barnaamijka Soomahan. laakiin meeq qof fiisa laga siiyay oo fiisa helay 56 qof dad gaaray 56 qof dad gaaray here 56 qof 2017 dad aad u yar waay 200 dad tiri gaaraysa 56 qof laga siiyay waxa waay wax ajaayib waay. 2012 28 qof bas fiisa laga siiyay dib u laabana 2012 imise qof Soomaaliya barnaamijkan ku guuleystay 12 175 qof tiri gaaraysa waxa laga siiyay 28 qof fiisa. marka waxa waay hada barnaamij ku guuleystay waxa wax walba helay isdhiinadii waxa brother shuruudaha jira shuruudahaas da soo buuxisid waxa waa leedahay hada laakiin shuruudii soo buuxin weysid waxa waay qof ay ismalada isagiis hada isaga marka waxa waay problemadan waxa waay ka imaanayaan beenta badan iyo waxa documenti fiiga la tagaysid. marka insha Allah xog fiican waa ka heshay sida rajeynaya linkiga website-kan qaybta soo dhigi doona adiga waxa waay waa sii gali kartaa si fiican waa u baari kartaa wax badan waa ku ogaan kartaa website-kan uu ku anfacda English taqaanid si fiican wax badan waa ka baaran kartaa meeshan insha Allah mawduucani meeshan ayaan ku keenayaa
hadduu jiro waxyaabaa u baahantihiin mawduuca inaan kasoo hadlaa ratiin aa rajeynaysin fadlan qaybta commentiga igu reebfurayn. insha allah khayr badan iyo caafimaad ayaan idin rajeynaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.